السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في عيني هاي يا صحابي والدي كسر راقي يقرأ لي هذا ويا أدون يوم قرني يوروبو ما قرني هرقب كي كسو كردي يا ويا أدون بلس كده بأردي ما أنت قصة إذا كشكيني وحوية هويو أنو ما كان هذا الكيد ما كان قياسي شي كذيدة إني مسكحية نوبكتو أيان ما أنت شي كذا كسوقاتي بسم الله هويا داسي وحيكونوا شي ودنك مرايكنك وحوية وقبد مدويان waxay leedahay ilaahay siiyey 3 caruura hooyadaasi 3 caruura wiil ina caruurteeda ina yaro kamida bay waxay inankaasun bay waxay la damacday inay tiraahdo markasta uu xanuunsanaya ilmuhuna waa ilmo caafimaad qaba oo ful caafimaadkiisu ful yahay oo firfircoon ilaa dabaashu tagi jiray inankaa yar waxay ku bilowday dhakhtarkun bay la daba gashay waxay tiri wuu xanuunsanayaa maxay dhahday inankayga la baaro ilmuhuna ma buko hada bal idinku eega wala yaabsan sheekadan hooyo ilmaheeda caafimaad la jecel baynu ognahay oo garanayna laakiin tani way ka duwanta waxyaabaha adduunka ka socda weeyaan tani way ka duwanta waa hooyo ilmaheeda la rabtaa inuu buko oo xanuunsado okay ilmaha yar 8 sanadood bay dhakhtar la daba taagneyd qalitaan la daba taagneyd dawooyin la daba taagnaa sorry maxaa dhahday dee ilmo yaroo waxaan ku uri ka dhigtay ilmo yaroo sakraada waxyaabaha adduunka ka soconaya weeyaan maxaa dhahday waxa dhacday oo kale dhakhtar kasta markay geyso wuxuu yiraahdaa uu caafimaad qaba iyadana waxay ka dhaadhicisay inuu ilmahan suuxo muruqyadiisu inaanay maxaa dhahday keenu jilicsan yihiin dee waxaad wax kale kuma garatay yuusba la dul istaagtay dhakhtaradii meel kastaba waxaa dhacday gabadhaasi waxay samaysay adigu waxay cir iyo dhul u gashay ilmahaasi inay bukaysiiso oo dawooyin lagu shubo ilmahaasi oo la yiraahdo oo ilmaha la yiraahdo okay ilmahaas waa ilmo buka weeyaan waxay geysay 300 waxay tagtay waxay geysay ilmaha yar 323 isbitaal 13 jeerna ilmaha waa la qala bahada eega dadna waxay u leeyihiin oo u raadinayna caruurtoodii caafimaad bay u leeyihiin caruurtoodii tanina xanuun iyo cudur bay la raadinaysaa ilmaheedii walaanaga adduunka wax ku aragnay subxaanallah هاي عندي كسر عليل 323 هوسبيتال بالمهير جيس كو 13 شهرنا المها قالتها بالمسمي بهذا إيه المها حتى عنتاد عادي ومعنو تيوبا لوجل يميلهن وعنتاد لقسية ما نفسن كرو waxa loo geliyay baashis neefta loo geliyay ma socon karo waxa la saaray gaari curiye dawooyin baa inta lagu wada xundurta laga dalooliyo oo dhunta laga dalooliyo oo sanka qoor maxaa loo geliyay tuub uu ku neefsado ilmahaas oo gaari waxa la saaray maxaa dhahdaa gaari curiye 8 sanadood ba inta ku wadi oy waliba inta ku doodisay ilmahay kanu qaba xanuunka kale qaba anigu laakiin waxaan la yaabay markaan saa sheekada u eegan dhageystay ilaa dhakhtaradu
sisiyar dadka waxaasoo dhan ugulama kacaane gabadhani maxay ku samaysay dhakhtarada miyay sixirtay talo dhakhtarada waa yaabe ila ilmo yaroo markiiba hab lagula odhanayo la odhanayo okay wuu qaba oo hooyadii la maqlayo deetana lala orday wixii la qabanayo anugu ma arkin ilmaha waa in la baadhaa oo la baadhaa oo la baadhaa oo la baadhaa markaasaa la caddaynaya ilmihii inuu xanuunkani hayo ama xanuunadan raadinayso laakiin gabadhan waxay dhakhtarada ku samaysay ee ka yeeleen hadalkeedii ay maqleen ee dabeetana hay yidhaahdeen ilmihii tuyuub lagu xidhay oo 13 jir maxaan leedahay operation la geliyay ilmihii way ka yeeleen inay tuyuubkan cuntada dhuunta laga siiyo caruurta qofka markaan waxba cunaynin laga siiyo ay ka yeeleen ilmihii yaraa lagu mudo ooy maxaa dhahda ka yeeleen ilmihii la yidhaa waa curyaan oo murqihiisu waa jilicsan yihiin ma socon karo gaadhi curyaan la saaro ooy ka yeeleen dawooyinka ilmaha in lagu shubo sababahaas oo dhan ayaa anigu fahmi waayey sideebay uga ogolaadeen okay imka gabadhi waa la qabtay waxaa la geeyey maxkamad waxay 8 sano soo kasoo liqaysa ilaa 6 sanadood meelaha ilmihii yaraana imka waa 10 jir 8 sanadood bay waxaan ku wadi waxaa sheekada ku bilowday isagoo 2 jir ku bilowday nasiib baa leeyahay ilmaha yar hadaan dhimanin isagoo 2 jir ku bilowday ilaa 10 maxaan imka waa 10 sano 8 sanay ku garaacisay waxa soo dhan oo la daba taagnay ilmihiisa oo curyaan waxa uu soo xayay xanuunka kale oo qabaayay 20 kun cuduraan jirin bay inuu heeraa ku sheegtay anigu markaan saaw eegay waxaan sidii somehow ilmuhu waa ilmo madow hooyadu waa madowday cadaankan dadkan dhakhtarka ka shaqeeyana cadaan bay badan yihiin marka cadaankani they don't care wax madow oo wax la orday maba eegayaan bay waa si ilmaha dar ilaahun buu ka noolaaday oo iyagu maxaa taalo ma dhiganin marka muhiimadda aan ka hadlayo waxa weeye hooyo ilmaheeda caafimaad la daba ordaysa oo la jecel ayaan ogeynona garanayna laakiin hooyo anigu filmaan badan baan ku daawaday hooyooyin waxaa sameynaya oo caruurooda xanuunan jirin ku sameynaya oo dawooyin siinaya laakiin kuwaasi waxay sameynayeen waxay siiyeen dawooyin khaldan bay siiyeen markaas ilmihii bukooda kuwa anigu filmaanta ku daawaday ilmihii baa bukoon dawooyin khaldan baa la siinaya ilmihii uu bukoonay daan markaasay dhakhtarka geynayeen laakiin adhoona gabadha inay saas masiin kale ma garan karo anyway adduunka wax walba lagu arkaya marka waxa weeye haddaad aragtaan hooyo ilmaheeda oonaysa uu bukaa bal ka wardoona ilmaha yar siduu yahay fisilkii iyo maxaan dhahday fisilkiisa iyo maxaan dhahday ficiladiisa ilmaha yar iyo waxa hadda aragtaan dawooyinkii in lagula degdegay iyo dhakhtarada way xanuunkani Mareykan oo kale kuma ekaanaya adduunka dhan buu ku fidaa oo u joogan qof hooyo aan xanuunsanaynin oo qof aan xanuunsanaynin maankii miyirkaba ka bukeen ma jirto meel walba way joogtaa marka muhiimaddu waxa weeye dabal hala maxaan dhahday adduunkunba waxaad weligaa maqlin bad kulma maqlaysa maxaa nin noolo maxaa aragti ku laaban bay dhahan Soomaalidu marka khayr baan idin rajeynaya intaa yaruba marka maxaa maanta ka soo yara tuuray maxaan dhahday insha Allah dabal waan soo dadaalaya soo duceeyay bahalkan YouTube-kan la yiraahdo caajis baa iga galay waxa noqonayaa oo maxaan dhahdaa busy waan ka caajisaya bari uma kolba odhanaya marka bal soo duceey khayr baan idin rajeynaya إن شاء الله وأنت لا صح لدون إن شاء الله بسم الله الكريم دويدنك مع السلامة.